waxaa jiray nina wuxuu lahaa meel timajara wadanka Talyaaniga maalin maalmo kamid ah waxaa u imaaday nin Chinese ayaa u imaaday markaasuu timaha ka jartay timaha si fiican loo qurxiyay markii timaha loo dhameeyay uu istaagay lacagtu waa meeqa lagu yiri ninkii timajara ahaa u jawaabay wuxuu yiri lacag ma qaat waa bilaash kan Chinese ka wuxuu ku jiri sabab wuxuu yiri bulshada raba inaan wax fiican wax wanaagsan u qabto ama sidaa darteed lacag ma qaati wad mahadsantahay u dhahay uu ka tagay maalintii labaad timajarahu markuu imaaday oo meeshiisa furay albaabka hortiisa wuxuu ku arkay warqad oo mahad celin iyo dahab yar oo baqshad ku jiro isku baqshad ku jiraan wuu dareemay inuu ninka Chinese ka yahay meeshiisa furtay hooshiisu watay nin Faransiis u imaaday sidoo kale timaha laga jaray waa la qurxiyay marka loo dhameeyay kan Faransiiskana wuxuu yiri lacagtu waa meeqo markaas wuxuu ku yiri timajaraha lacagta ma qaati waa bilaash kan Faransiiska wuxuu yiri sabab markaas wuxuu ku yiri bulshada aan ku dhaxnoolahay rabaan wax wanaagsan u qabto lacag ma qaati wad mahadsantahay u dhahay kan Faransiiska oo iska baxay maalintii labaad sidoo kale ninkii markuu furay meeshiisa timajaraha u imaaday albaabka hortiisa wuxuu ku arkay baqshad waxaa ku jiray warqad mahad celin waa mahadsantahay qoran tahay iyo baraafuun maalintii saddexaad waxaa u imaaday nin Soomaali uu soo fariistay timaha laga jaray waa loo qurxiyay lacagtu waa meeq yiri waxaa lagu yiri lacag ma qaato waa bilaash ninka Soomaaliga wuxuu yiri sabab wuxuu yiri ninka timajaraha bulshada raba inay wax fiican u qabtee lacag ma qaati wad mahadsantahay yiri ninka Soomaaliga albaabku ka baxay ninka Chinese ka wuxuu dhigay warqad mahad celin iyo dahab ninka Faransiiskana warqad mahad celin iyo baraafuun maxaad ka filanaysaa ninka Soomaaliga inuu dhigi doono ma hilib ari soo dhigi doonaa ma bariis buu soo dhigi doonaa majaad buu soo dhigi doonaa ma moos buu soo dhigi doonaa maalintii labaad ninkii sidoo kale meeshiisa markuu imaaday albaabka shaqadiisa markuu imaadayba wuxuu imaaday boqolaal Soomaali oo saf ku jirta albaabka inta